maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha cusub ee lagu kordhinayo Hargeysa Hospital Group kaasi oo ah dhakhtar casri ah oo ay maalgelisay dawladda Taiwan. mashruucan caafimaad oo dalka muhiimad u ah waxa dhisaysa shirkadda Almis Construction taasi oo ku guuleysatay qandaraaska dhismaha isbitaalkaasi. Almis Construction oo kamid ah shirkadaha dhismaha ee ugu waaweyn dalka ayaa la aasaasay sanadii 1993 waxaana ay muddo 30 sano ah ka qayb qaadanaysay dhismayaasha waaweyn iyo kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliland. intii lagu guda jiray xafladda dhagax dhiga shirkadda Almis ayaa soo bandhigtay nashqadda rasmiga ah ee isbitaalka kaasi oo lagu dhisayo lacag dhan 6.5 milyan oo dollar oo qayb ka ah mashruuca guud ee qiimihiisu dhan yahay 22 milyan oo dollar. maamulaha shirkadda Mustafa Rashid Ali oo madashaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay nashqadda dhismaha muddada lagu dhisi doono iyo waliba shirkaddu inay ilaalinayso tayada iyo habraacyada caalamiga ah ee dhismaha. Engineer Mustafa Rashid waxa uu sheegay in Almis ay ka go'an tahay in dhismaha uu noqon doono mid tayo leh ammaan ah isla markaasina waqtigiisa lagu dhisayo si uu u noqdo astaan cusub oo horumarineed oo ka turjumaysa saaxiibtinimada Soomaaliland iyo Taiwan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi xubnaha wasaaradda wasiirada agaasimayaasha xubnaha laga jooga safaaradda Taiwan mudugmarwo adna aadan martida kale sharafta leh aad iyo aad baan salaamina waxaad ugu salaamnaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. أنا أقول هذا مجال شركة Almis Construction Company فرحة أد وين من وطهي أنا ما أنت كقيب قالنا دقيقة مشروع عافمات كا دكتور كوين لقدر سيو تايوان ميديكال سنتر هرجيس جروب هوسبيتال لقدر يستوون إن شاء الله. شركة Almis وشركتها وفع وين وطن كشوجة كم تهي وحلا أساس سنة كيكون سجال بقول ستة سجاشن كي waxay ka soo qayb qaadatay dibbiskii wadanka iyo marxaladii kala duwan wadanku soo maray maanta oo la joogo oo wadankii horumar u dhaqaaqay waxaan rajaynaynaa in horumarka ka sii qayb qaadato insha Allah aad iyo aad nool mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa mashruuca sida qurux badan inuu horgalo insha Allah waxaan rajaynayaa mashruucan inuu khayr inoogu bilaamo khayrna inoogu dhamaado waxaan dardaarmi lahaa oo shirkadda Almis inay halkan duca ka eegto oo magacay ka eegto وأنا وحبة فائدة كأجين وايو دسمهني وحشري دونا مدفر بدن وحلو جد وين دونا لو قل دونا دفر بدن مركعين دت كاسي وبوجان دسمها قروح ديسة يسدوا وجوه بوي هاي مشروعة مجا إني قاتان ويحلوين وين إسكساران بان قدر دار ملها مدحويني مانتا ومعلن فرحات لويجي اختار كان قروح بدن لو حاجة لي ملايين دولار أو لبي 20 مليون ودلود هو كل سيسو إلى واحد كم بريء إنه إلهي نوبر كيو قلنا ألمس كمبيني جا كوجول استينا وحن كل دار يا إن توا أمانة ذا يصير وجتان إلهي يوم نكو أسترو هدو اختار قروح بدن أو سومال لأن هالك أوجه كلا أدون كودن لوجي مادو وينور اسمه سبال كانوا إحنا قندونا تير وينو مجال بلا هذا كذا عافمات كعاه نوح بدن كقبت إن شاء الله يجودهم بسوماليلاند وحن كلمة دردارة نونسينيا ألمس أو دسيسا شركة دسيسا إسبالكن إلى أمانة دايلاليا وأمانة إسبتال كاسي وأمانة كتمدت كاس ولا لهن الدولة تايوان وأمانة لوجو تلاقي شعب كسوماليلاند إن سوى ناكسن أو هفنانة أو ضاعد نماله أيوجتان أو إلها كبقشة كشرتو إسبتال كايوات كيان ونهجاتيان تانا وان كل دردار مياه إسبتال كان وحاو ككومية هاي سيرو جود هدانو دول مرو وحياله ككومية هاي وحاو جهرية وحاويا لبا طبق كواد وحاو ككومية هاي إن حفيسيو معمول وحكلا أو كتيرة وحلا يلعبون بتقنا emergency department
oo ah ka gargaarka degdega ah waxa kale oo ku jira bukaan socod xafiiso bukaan socodka lagu eego waxa kale oo ku jira qaybta ama ootiga waxa la yiraahdo qalliinka ayaa iyaduna ku jirta waxa kale oo ku jira ICU oo ah mataqaanaa meelaha dadka criticalka ah lagu daweeyo ayaa iyaguna ku jirta waxa intaa raaca xafiisadii iyo qalabkii kale ee ofiisyadii ayaa ku jira kaasi waa dabaqa koowaad dabaqa labaadna waxa ka koobanaan doonaa waadhar buu noqonayaa waadharkaasina mataqaanaa waadhar aad u waaweyn oo qaadi doona ilaa iyo wax ku dhadhow 100 bukaan ayaa lagu daweyn doonaa xafiisyadii iyo qalabkii kale ee meelihii lagu shaqayn lahaa ayaa iyadana dheer marka guud ahaan intaas ayuu ka kooban yahay cusbitaalka laynoo dhisayo shirkadda almis oo la qabo ku guulaystay tartankan oo u taalo hawl adagi waxaan rajaynayaa khibrad badan kamaan haysan fargad badan laakiin sida filimkii aan muuqanayaan arkayay injineerka Mustafa halkan ka hadlayay suulidu waan baasaran waxaan rajaynayaa iyaguna inay guul balaaran ka soo hooyaan dhismahaas si muwaadinimo leh xilkasnimo leh islaamnimo leh waajibaadkooda u gutaan. We are committed to fulfilling our responsibilities, supervising construction, approving payment installments, receiving the original design upon completion, issuing the complete certification, and registering the hospital as a national public asset. We take this responsibility very seriously, since this project represents a gift of friendship from Taiwan and a trust placed in our hands as public servants. The Ministry of Public Works, Land and Housing remains committed to upholding it with transparency, efficiency, and professionalism. Thank you to the government and the people of the Republic of Taiwan for your standing with the people of the Republic of Somaliland. The support you have provided for these vital life-changing projects is more than assistance. It is an enduring testament to true friendship that we will never forget. Following the completion of Taiwan Avenue and groundbreaking of Somaliland National Data Center, I'm delighted to represent Taiwan ROC government to co-host the groundbreaking ceremony of the Taiwan Medical Center. Congratulations! Today is our day. Hambario, Hambario, Hambario. Taiwan Medical Center is the first hospital in Africa that bears the name of Taiwan. We are proud of it. This is a $22 million project listed in the MOU signed by both governments. The hospital will be a 2-story building with 105 beds and 3 brand new operation theaters. You already see the video. You can visualize it. Okay? We're going to follow our plan, follow our design to deliver it. Because commitment made, commitment need to fulfilled. That's our Taiwan model. The project could be roughly divided into 3 stages. The first stage of building construction, the structure part, has been awarded to the local construction company through a fair and a transparent mechanism witnessed by the officials and also local lawyer. Once the structure is completed, experts from Taiwan will come to finish the detailing of operation theaters and other mechanical and electronical works. waxaan soo dhaweynayaa uguna mahadnaqayaa magacayga iyo magaca dadkaygaba madaxweynaha Taiwan iyo dawladda Taiwan centerkan cusub ama Taiwan Medical Center ee ugu deeqday shacbiga Somaliland
wuxuu sii adkayn doonaa cilaaqaadkii awalba wanaagsanaa ee ka dhexeeyey labada dowladood iyo labada shacbiba waxaan rajaynaynaa cusbatalka wuxuu noqon doonaa cusbatal kale oo kaba wuxuu noqon doonaa cusbatal u adeega dhammaan gobollada galbeedka sidaan sheegay insha allah inaynu ilaashanno ayaa inagu waajiba shirkadda ku heshay bakhtiyaar nasiibka ama tartanka dhismahana waxaan leeyahay imtixaan baa gelaysaano imtixaanka ilaahay ha idii fududeeyo wax khayr laan inoo wada rajaynaya dhammaanteen